wafdi ka tirsan shirkadda DP World oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Berbera ayaa saaka kormeer indha-indhayna ku soo maray kada iyo dhuumaha shidaalka ee magaalada Berbera waxa ay isugu soo biishafteen xafiiska maareeyaha dekedda Berbera isla markaasina ay kula qaateen shir ay albaabadu u xiran yihiin markii uu soo afmeeray kulankaasi waxaa saxaafadda dibadda kula hadlay maareeyaha dekedda Berbera Injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xorxor waxaana ka mid ah hadaladiisii malaha waxa arkaysaa oo DP World oo halkan la joogtay ilaa shalay tahay la joogaane hawsha ay u joogeen waa si hore oo geedi socodkeedii ku jirta alta kala suuq iska badnaa laakiin waxaan sheegayaa markaas waxay ahaayeen niman saraakiil DP World u shaqeysa oo ku saabsan xagga dhismaha iyo xagga warshadaha يا حاجة مامور رشيد مبارك عبد التلفزيون كعالمي الصومالي كيبل مقالة بربراء